koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan dhibaata igu filane faraqaan ku haystaa weli faalka caashaqomaygu soo fadhixin yahay war sidaa maaha ku dheelin bahasha in dhibaata nugu filane qarahaan ka haynaa war bahasha naga dhaamin intifaacyo igu filane dhagaxaan ka haystaayey askartana ka fiicnaayey war gudoomiye amniga gobolka banaadir maanta wuxuu yidhi qaraxii ka dhacay muqdisho asagoo ciidamada ka dhumanaya ayuu luqluq yar gala kadibna buw ou dhaha war gudoomiyuhu runtoosa sheegi karine gaari waajib laamiga dhexdiisa uu shidaal ka qaadanay war horaa waxaa loo yidhi rumaan la sheegin maahine rabti dameerka raad qurxoon war bugtaa magaalada muqdisho caadada u noqotay tii maanta u dambaysa meeqaa ku baxday war muqdisho waxaa la isweydiiyaa bugtii yeertay ma ka badbaadda ee meeqaa ku baxday laisma weydiiyo war afhayeenka gobolka banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga labo keliya ku dhimatoo yidhi talow inta kale xaguu geeyey war gudoomiyuu intuu yaqaanuu sheegaye adinku haddaa dad kala taqaanaan sheega war meesha maanta bugtu ka dhacday meel aan ka fogeyn oo la yidhaahdo xerada gaadiidka booliiska xaflad weyna caawa ka dhacaysa war xafladda weyne aad sheegaysa maxay tahay 8 February weli lama gaarine war 22 Oktoobar mar hore la soo dhaaf war 22 Oktoobar sheegaysid 14 Oktoobar baa lagu ilmaamaniyo war sheekadu shala maanta ku ilowmiya maya waa xamar garow ku ilow war niman warka naga dhageysta waxaad sheegaysaan 30 January ka dambeysay xafladda waxa la yiri lacag badan ku baxday waxaana lagu xusayaa halkii sano oo gudoomiye yiriis oo gobolka banaadir maamulayay waxaan sagara waay wax qabadka yiriis oo ku faani doono wariya gudoomiyaha wax qaban miyay taynii la farxiyo ka beero in dhibaata ugu filane faraqu ku heestaa dhan waraad muqdisho balaaya kama jirtee dalxiisayaal noo jooga qaraxyada iyo waxaad sheegaysaan ha maqashiinina xafladda caawana way ka qayb galayaan warnimayo waxaa la yidhi garow markii la isaaf garan waayey bisha 3aad ayaa mar kale loo ballamay in dani madaxda gogol u dhigo sababta keentay in garow mar kale gogosha la dhigana waxay tahay la yidhi axmed madoobe oo yidhi waa tii awowgay lago wax kasta oo la sheegay muqdisho aanan tegayn war axmed madoobe aqli buu leeyahay haddii kale mukhtaar roogow ayay mushaarada wada cabi lahaayeen war axmed madoobe eed ma lahan hadda ka hor baxaaf markii lagu casumay calaamasaarka lafta gareen waa kii yidhi sidii roogow baa lay qayaamaya oo lay xiri rabaa wallaahi baanan yeelay weligay anugu maarag madaxweyne xabsi ka baqaya warnimada waxaa la yidhi gocashiya dhib iyo godob foolataay gurigeed ba'yey guul lagu farxiyo miyaad gacal dhashaa warnimayo waxaa la yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ku ducaystaa ilaahu kursiga ha igu adkayn sida ra'iil odinga iyo faysal cali waraabe ee mar uun xilkaysi axmed madoobena wuxuu ku ducaystaa ilaahu meesha shariif xasan iyo cabdiweli gaasmareen hay marsiin oo sida ordogan afgembigii uga badbaaday labadiyo nolol iiga badbaadi warxaafba wuxuu ku ducaystaa ilaahu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha garansiya inay galmudug ka soo jeedaan war muuse bixina wuxuu ku ducaystaa ilaahu ictiraafka Soomaaliland ha igu ceebayn oo ha igu kashifin madawiina lafta garaagna mayka do'aysaday ilaahu wantiyan afartaysana ka dhamaysadaa obooro waan suurju joobjay qaraabadiis ingooyaysiday wala madaxweyne Uganda iyo weerika guuto mabuuto Museveni webaliyo sebo warsun hal ugu qasana dhageyso war la yaab laa ka soo baxay oo miiska soo haraacay warka ay dhaxgelinina wuxuu yiri Soomaaliya dawlad shaqaysa kama jirto war annaga la qabne hana ictiraafo marka anu waxaan u malaynayaa Kampala Accord inuu soo wado taana ma ahayd yaalay noqon war Kampala Accord farmaajo hadda ka hor ku baxay ma marka loo rabo inuu ku bixiyo war waa xiriirka in loo jaro ciidankaagana la baxlaya of labadoodaba war waxaan maqli jiray midda jecli lafta jecli Kampala Accord farmaajo ma jecla Uganda ciidankeeda la baxdana ma jecla hadalka Museveni ma jeclaysan warnimada waxa la yiri Afrikaan ka biyayaan xigmada laga siyaadayne hayla yaabinina waa murtida gogoldhigeedii ayagoo dameeriya fardiyo lo iyo geel haysta aqli badan haday leeyihiin kama tahriibeene ayaga isxaasida hayee lama gumaysteene Soomaaliba Uganda ku tiri dawlad ma hidine yuweylina warku ku hadlaya daacad ka ahaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin
lama harafoodan dinaariya yaana sii badinina kii bismillaahi warnigii toddobaadkii la soo dhaafay ahaa madaxweynaha Soomaaliya iyo Puntland Said Abdullahi Deni maanta ayuu shaqadiisa u horeysay qabtay war ma madaxdiiba heshiisiyey war wuxuu waraaqii aqoonsiga ka gudoomay qonsulka Itoobiya u fadhin doona Garowe waraadar waxa soo wuxuu Cabdi Weli ku baxay weeyaan war waxa sabay Axmed isku maanaan ogay war Deni hawltaas ka weyn baa u taala waxaan maqlay gobolka bari Daesh iyo Shabaab inay ku dagaalamayaan waxay u dagaalamayaan ana cunaya dalka iyo ana cunaya marka kuwaas inuu ka hortago oo dalka ka qabto ayaa laga sugayaa boowe Puntland xamar ma aha war kullu iyo dhiigiinu wuxuu macaanaaday war Soomaaliya iyo al-shabaab waa isla jooga ismana arkaan marka waxaan maqli jiray ayayda ay ku duceysata Allah il iyo dhag naga dhig warniyo qaracad faradiisa ka dhacay ma Soomaaliya ku dhimatay masaajidna ma ciidan war adeer Soomaaliland horumar bay ku talaabsatay hadda imaka waxa ka socda tartan orod ah oo wadamada xawla caalam oo dhan isugu yimaadeen war saas ma ahina waxa isugu yimid meesha orodayahana ka socda wadamada ictiraafka haysan war fadhiga hadii lagu aqoonsan waayay inay ordaan way ku qasban yihiin Soomaaliya waxa la yiri weli kaalinta koowaad uga jirta musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta maalin dhawaydii mana lahayn musuq iyo maasuq waanu dhalanay Ingiriiska aan dow ka yimid mana lahayn war warkiina iyo warkii qayr waa isburinayaan maxaad madaxda uga daba hadashaan war musuq iyo maasuqa dhalashay dhiig baan wadaagnaa war hore loo yiri musuq maasuq Soomaali waa meheradeedii waxa qoonka ku nool qofba meel ka kurbaysane idinkuna ka amaanay waxba soo kordhiseen war anagu musuqa Soomaaliland kordhinaana nabi wariyaha wax wanaagsan sheega ama musuq ahadin xoolaha dadka hadii kale sharciga musuq maasuq ayaa ku qabanaya war sharciga musuq maasuq nabadii nolol waa ka horeeyay 60kii waxa la yiri mar hore la duugay noolaytan wariyaha cid kasto musuq maasuq madaxa dhulka loo gelinaya naga taga qaylada ay shahaadad wariyaha ma la geli karo qowsaarkay qaanka kala war shibnaar sharti ilaahay noo hijaaba